in dhalanteed iyo maaweelo been ah iyo riwaayad been ah in loo jilo iyadoo shalay aaskii aan u taaganahay guddoomiyaha hore ee gobolka oo meydkiisii yaallo ayaa waxaan dhagaysanayaa wasiir kamid oo la amniga waa sugan yahay oo weliba kuwa amniga ka shaqeeya security-ga oo meel ku hayo amniga dalka waa sugan yahay ma aragtay nabadgelyada taagan oo kaamarooyinka hor leeyahay iyadoo aan u taaganahay meydkii ma aragtay iyo tacsidii guddoomiyaha aan u taaganahay oo weliba igu sawirtii iyo beentii xataa tacsidii korkeedii lagu wado arrimaha siyaasadana waad la socotaan xaaladeeda meesha ay marayaan waa xaalad murugsan haddaan ka bilaabo galmudug waxaa la socotiin dowladda in muddaa inay ku mashquulsaneed siday u dumi lahayd maamulka galmudug siday ahlu sunno iyo maamulkii galmudug ee madaxweyne u kala dhantaali lahayd guushaas way gaartay laakiin maanta waxaa hor yaalla guushii dhismaha inay la timaado inay wax dhisto dowladda waa arag 2 sano iyo bar la soo dhaafay inay duminta qabiiro ku yihiin waa aragnay karti badanna sida wax loo dumiyey ee xirfadeeda ay leeyihiin laakiin maanta waxa hor yaalla waxa waaye siday wax ku dhisi lahaayeen waxaa wax lala yaabo ah inay hadda ku mashquulsan tahay dowladdii shaqadii uu qaba lahaa maamul goboleedka galmudug la dhisi doono ama kii dhisnaa hawshiisa ama mid kala dhisi doono hawshii uu qaba lahaa in ciidan la isku dhafo in amni la sameeyo in nabadgelyo galmudug laga sameeyo waa hawsha dadku ay u samaysanayaan maamulka dowladdu meesha ay ku mashquulaan dhismaha maamul galmudug waxay ku mashquulsan tahay ciidan in la isku dhafo ahlu sunno ciidanka laga wareejiyo dowladda la hoosgeeyo ciidan la isku daro waxaasoo dhan macnaheeda waxa waaye aan abuurno meelaan annaga xukunno annaga aan controlno ujeedku waa sidaas ujeedku ma aha maamul daafurnaan oo dabacsan oo dadka ay u dhan yihiin hala dhiso loo dhan yahay ma aha ujeedkeeda waa annaga aan gacanta ku dhigno marka hore security-ga iyo meesha sidii aan rabno aan ka yeelno waxaan u baaqaynaa dowladda inay xoogga saarto howlaha loo igmaday oo inay gacan ka siiso dadka reer mudug inay galmudug inay dhistaan maamulkooda ma aha hawshii maamulka uu qabo lahaa inay ku mashquulsanaadaan waxaan onahay dowladdu inay xasaasiyad ka qabto shirarka dib u heshiisiinta ee ka socda deegaanka oo aysan wax taageero ah aysan u fidinaynin oo ay ku howlan tahay kala geynta dadkaas talada iyo wadatashiga u jooga waxaan dowladda leenahay waxba sasa ka qaadinina inay dadku deegaanka tashadaan oo ayahooda ay ka tashadaan oo ay danahooda ka tashadaan uma baahnidi inaad ka sastaan waa inaad gacan ku siisaan waxaan sidoo kale rabaa inaan ka hadla arrinta Jubbaland oo dowladda aad moodo inay shaqo ka dhigatay inay doorashada Jubbaland ka soo saarto madaxweyne ayaga ay wadato ee ku kalsoonaalaadahay systemkii u yaalay dowlad goboleedka Jubbaland oo baarlamaankii iyo golihii fulinta iyo guddigii doorashada hawsha ay wadaan in ay ku kalsoonaalaadahay oo har iyo habeen ay ka shaqaynayso sidii baydhabo kale inay adeegsato ciidamo dowladaha dariska qaarkood waxaan ugu digaynaa dowladaha dariska qaarkood oo shaki badan ka soo ifbaxayo inay rabaan dhaqankii baydhabo kale ay la yimaadaan inay arrinta Jubbaland howlahaas faragelinta guracan ah ay la faragalaan amisom waa inay ku akaataa mandate-ka ay dalka u joogto ah nabad ilaalin dadka deegaankana ayagay u daysaa inay isdoortaan wixii ka qaldan Jubbaland guddigeeda doorashada ama hanaankeeda doorashada waa in loo daayaa Jubbaland inay xalisato ma aha inay dowlad ajnabi ah ama amisom ay faragelin guracan ay ku sameeyaan waxa amisom gadaal ka riixayna waa ognahay waa dowladda federaalka oo rabta in loo jujuubo Jubbaland sidii loogu jujuubay baydhabo oo kale ama koonfur galbeed marka waxaan bogaadinaynaa runtii Jubbaland inay doorashadii ku qabsoontay xilligaas oo ah xilligii ay dhamaadeen mandate-ka hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland oo baarlamaankii iyo madaxweynihii xilka ka dhamaaday ay diyaar u yihiin inay qabtaan xilligii doorashada loogu talagalay dowladda federaalka mas'uuliyaddeedu waxay inay gacan ku siiso ma aha inay carqaladayso ama fidno ka dhex abuurto ama qabaaisha ay isku dhiibto colaad iyo fidno ay ka dhex horiso wax habboon ma aha marka waan soo dhaweynaynaa habsami socodka hanaanka doorashooyinka Jubbaland waxaan leenahay wixii reer Jubbaland ka qaldan dhexdooda inay ka saxdaan yaa laga rabaa dowladdana aan uga digayno waxaan kale uga digaynaa dowladaha hantida iyo maalka meesha ku qufaya oo daba taagan ashqaas ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee rabta inay Jubbaland ka sameeyaan fidno hor leh